howlgalkan oo ah mid qorshaysan oo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ay ku qaadeen goobo ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab ay ku dhibaateynayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanada ay ciidamada maanta ku weerareen kuwaasi oo kala ahaa tuulooyinka Shaatolow iyo sidoo kale Qaydar Subow halkaas oo ka dhacay dagaal ba'an oo ay ciidamada qaranka ku burburiyeen dhammaan isbaarooyinkii u yaalay maleeshiyada al-shabaab oo maalmihii u dambeeyay halkaasi ku dhibaateynayay shacabka isku kala goosha degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Dolow. taliya Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ka mid ah saraakiishii hogaaminayay howlgalkan ayaa markii uu soo gabagaboway howlgalka waxa uu warbaahinta qaranka kula hadlay tuulada Shaatolow halkaas oo ahayd goobtii uu ka dhacay dagaalka. Shaatolow waxaa lagu sheegay nabadiidka al-shabaab labadan bari waad maqlaysay inay shacabka ku dhibaateynayeen saaka waxaan loo soo kalahay waxay ahayd in ereyadan iyo dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga oo aan dib dambe loogu arkin maadii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guulgaarnay maanta waxaan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay ku soo dhawaadeen oo ahayd kartaan saaka ilaa 2 saacadood oo dagaal ku qaadnay haddana ilaa buurahaas waa laga riday tuulooyinkan dambe oo sida u jabeen Hareeritur iyo meesha la yiraahdo tuulo barwaaqo insha Allah waan filaynaa ayagana inaan howlgal qorshaysan ku qaadno labada maalin oo fooda lagu soo haayo meel kasta oo nabadiidkaas ay uga jiraan gobolka Gedo noqon doontaa mid laga guulgaari doono insha Allah shacabkana uga mahad celinayna garistaaga iyo wanaaga ay u sameynayaan ciidankooda qaranka Soomaaliyeed waan sii wadi doonaa howlgalka meel kasta oo nabadiidka lagu sheego waxaan ku tagi doonaa lugaheena ma lagu sugaayo meel dambe oo goob ah sidaan hadda saaka u soo aadnay aan u aadi doonaa meel kasta oo lagu sheego shacabkana waxaan rabnaa in ay kulay meedad badan oo ay ka tageen waa yaalaan Soomaaliyeed tooso isku tiigsaday bagiina taagnaane taageera waligi si kastaba howlgalladan ayaa imaanaya kadib markii maalmihii u dambeeyay maleeshiyada al-shabaab ay dhac u geysteen dad rayid ah oo ku sugnaa tuulooyinkaasi waxaana ciidamada qaranka oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay badbaadinta shacabka ay weeraro qorshaysan ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab halkaas oo ay khasaare ba'an ka soo gaartay maleeshiyada Maxamed Kaafadan Bishaar KAF UK warbaahinta qaranka degmada